waxaynu saaka ku jarmaadi doonaa goobo kala durugsan oo dalkaasi aan ugu dambeynta u gaarno goobaha ay ka soconayaan mashaariicda macdan qodista iyo sahameynta macdanta oo deegaano kala duwan oo dalkeena waqtigan ka soconaya. ما شاء الله بلاقنا معدي لهي دلكنا وغدقي halkan waa deegaanka Fiqaayuub oo ka tirsan gobolka Togdheer kasoo nimcada iyo quruxda ee bakumaneystay deegaankani waxa uu qani ku yahay oo laga soo saaray macdanta nooca loo yaqaan jeerka halkaas oo aynu safar labaad u gali doono fikta sare ee buuraha aadka u dhaadheer oo waqtigan macdan qodista jeerku ka soconayso. بريء هراء أنتي عن شركة هنو إيمان وحنو كل شغالين شري بورتا دقيق حبان كلا سود دقيق شري دقيق حبان كلا سود دقيق شري وانو كل شغالين كري ويني مركي عن كل شغالين كري ويني وحن دولة دا أيه وحنا كنت كمبينيو ستة قلب عصرية وشغالي فدودية أدر وحنا هدر عن هاي شغالها شركة دا BRM si wacan ayaanu u shaqaynaa shaqo fudud baan ka shaqaynaa waxyaalihii sidii aan uga shaqayn jiray maanta shaqooyinku aad iyo aad bay noogu fudud yihiin noloshii berigii hore aanu ku shaqayn jiray shaqaale ahaan wax badan baa iska kaya bedelay waxaan helay dhaqaale annaga iyo qoysaskayagaba naanfaca sidaa ayaanu ku shaqaynaa. waxaan idinku ballan qaadayaa inaan wasaaradda macdanta inta joogo waxa la yiraahdo wixii aan kari karay wanaaga ee waajibkayga ama fiqiiba ha ahaato ama Soomaaliland kala bahatee inaan guto. wixii qarniyo iska yaalay ee khayraad in la inoo soo saaro inuu dhammaanteen wada faa'iidno hadday tahay shacbiga deegaanka iyo hadday tahay gobolka iyo hadday tahay qaranka bayna dhammaanteen ka wada faa'iidno. waxaan horta bilownay inaanu raadino xogihii hore ee wadanka hore looga qoray tarjumaad aanu samayno kadibna remote sensing-kii muxuu ahaayay satellite-kii macluumaadka laga qaadanayay kiina la duldhigayay la eegayay meeshan u soconaa ma tahay meel suuragal tahay in wax laga helo. dal wuxuu horumar ku gaadhaa khayraadkiisa dabiiciga ah marka waynu sheegi karnaa dalkeenna waynu ku faani karnaa la soo bixi karnaa garan karnaa waxaan haysanaa waxa yihiin marka aad bay farxad noogu tahay inay wasaaraddeenu fulinayso oo aanay gacan kale aanay noo fulinayn waa xog leenahay iyo tacab leenahay iyo cashuurtii dadweynaha lagu qabtay oo lagu adeegayo weyn. wafdi ballaaran oo hogaaminayay wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta ayaa kormeeray mashaariicda macdan qodista ka socota deegaanka Fiqaayuub waxaana sidoo kale ay wafdigani kulan la qaateen dadweynaha deegaanka Fiqaayuub. aad u salaamaya kashka iyo qabiga ka salaamaya dadweynaha igu soo dhaweeyay halkan waayeelkiisa madax dhaqameedkiisa dhalinyartiisa dumarkiisa cid walba ay soo dhaweysaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan Fiqaayuub ku arko dumarkaa sharafta leh dhalinyartaa sharafta leh ee ka muuqdo islaamnimadu. waxaa ilaahay uga baryayaa inuu ifsan iyo aakhirada ma siiyo wanaagana ay sii wadaan. waxaana ay tusaysaa inay igu dhiiranayaan igu leeyihiin xilka lagu igmaday ee adu haysa Fiqaayuub iyo Somalilandba si u gudo waajiba oo daacada. فريدهم بيفرقوا
waxaan idinku ballan qaadayaa inaan wasaaradda macdanta inta joogo waxaa la yihahda wixii aan kari karay wanaaga ee waajibkayga ama fiqiiba ha ahaato ama somaliland kalaba ahaatee inaan guto waxaan u diyaarahay mar labaad wasaaradaydii inay waxa khuseeya macdanta iyo wixii kale khuseeya dawladaba hadday tahay iskuullo hadday tahay caafimaad inay idinkala shaqayso fiqi ayuub ay wax aliyaa waxaan u qaban kara baan u qabto idinkana waxaan idinka badhayaa in amniga la shaqaysaan shirkadaha la shaqaysaan dawladdana la shaqaysaan halkani waa deegaanka dahabka laga qodayo cirshiida oo ka tirsan gobolka Sanaag waxaana safar shaqo ku maraya wafdi uu hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta oo kormeeray goobaha shaqadu ka socoto waxaana ay sidoo kale wafdigani la kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka cirshiida muddo 4 cisho ayaynu ku sugnayn eeriyadan inaanu safar soo ahayn iyo inaanu joognayba alxamdulillah waa khilaaf yar oo dhex yimid shirkadda iyo dadka deegaanka adduun la cirshiida intiina turxaan bixintii naga dhamaatay alxamdulillah rabbil caalamiin maantana gacmaha muhiimka wada haysanaa hal tiimna waynu nahay adduun la yiraahdo shirkadda xidid madow ee maanta ka shaqeynaysa waxaynu rajaynaynaa guul waxa weeyaan waxaynu rajaynaynaa wixii qarniyo iska yaalay ee khayraad in la inoo soo saaro inuu dhammaanteen wada faa'iidno hadday tahay shacbiga deegaanka iyo hadday tahay gobolka iyo hadday tahay qarankaba in dhammaanteen ka wada faa'iidno community diplomatkii waxa weeyaan shirkadda waxay samayn doontaa MCH-kii insha Allah sida ugu dhaqsaha badan sida barasabku sheegay iyo gaarigiiba waa diyaar sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddida khayraadka ee xildhibaanada golaha wakiilada Mubaarak Muuse Ismaaciil iyo xildhibaan Cambe waxa bollan nooga inaan runtii kor joogteen u noqono hawsha ay shirkaddu wado iyo ballanqaadka dawladdu ay ku ballanqaaday waxa maanta halkan aan u joognaa inay gacmaha haystaan deegaanka shirkadda iyo xukuumadda sidoo kale waayeelka deegaanka ayaa iyaguna dhankooda halkaasi ka sheegay inay dawladda iyo shirkadda macdanta ay xidid madowba hadda laga bilaabo ay la shaqaynayaan wixii horumarana ay soo dhaweynayaan maanta waxaa alxamdulillah in cabashadii deegaanka iyo shirkadda la dhameeyay wixii gudaha yagaanu ka dhamaynaynaa waxaan halka caddaynaa inaanu qaadanay horumarkana waa soo dhawaynaynaa go'aankana waa wada qaadanay horumarkana waa soo dhawaynaynaa dawladda iyo shirkaddana waanu la shaqaynaynaa dhanka kale wasaaradda tamarta iyo macdanta waxay gobolka saaxil ka wadaa mashaariicda sahaminta iyo baadhista macdanta deegaanada buuraleyda ee gobolka saaxil qaybtii koobaad mashruuca bilowgiisii weeyaan insha Allah wuxuu daaran yahay kan aynu maanta u joognaa gobolka saaxil kaliya laba goobood oo kamid ah meel waa qaybtan Hudiso ilaa iyo Geedlookor meelna waa Bahalale weeyaan qaybta Hudiso ilaa iyo Geedlookor inta ka soo sokaysa waa 290 kilomitir square halka meesha kalena ay ka tahay 30 kilomitir square marka waxaanu sameynay sidii caadiga ahayd waxaan horta bilownay inaanu raadino xogihii hore waddanka hore looga qoray ku samayno geological mapskii hore la sameeyay aanu interpretation ama muxuu hayay tarjumaad aanu u samayno kadibna remote sensing-kii muxuu hayay satellite-kii macluumaadka laga qaadanayay kiina la duldhigayay la eegayay meeshan u soconaa ma tahay meel suuragal tahay in wax laga helo kadibna ay tiimku halkan yimaadaan